Ma ogtahay da'daadu inay kordhi karto isla markaana ay yaraan karto? Ma ogtahay haddii aad 60 sano noolaato inay da'daada runta ay tahay 20 sano oo keliya? Haddii aad isleedahay arrintaas sidee bay ku dhacaysaa? Sidee bay da'daydu ay u kordhi kartaa isla markaana ay u yaraan kartaa? Muuqaalkan dhammaystiro adoona ilaaweyn inaad subscribe saarto channelka haddii aad ku cusub tahay. Faa'iidaysi wacan. waxaan wada ognahay nolosha aadamaha inay u dhaxayso 60 ilaa 70 sano sida uu sheegay nabigeeni sallallahu alayhi wasallam acmaaru ummati ma bayna 60 ilaa 70 wa aqalluhum man yajuuzu dhalika. da'da ummadaydu waa inta u dhaxaysa 60 iyo 70 jir, intooda yarna waa kuwa dhaafa intaas. qof waliba oo naga mid ah waxa uu jecel yahay aw rajaynayaa inuu cumrigiisu dheeraado aw nolosha wax badan aw ku nagaado, sida uu waxyaalo badan u qabsado, qorshooyinkiisana aw xaqiijiyo. inteena qorshe aan lahayn ee hadaf nololeed aan lahaynna waxay iska jecel yihiin inay asxaabta iyo qoyska ay ka tegin ay iska noolaadaan in badan. adigu daawade, sababta aad u rabtid inuu cumrigaagu dheeraado commentiga bal noogu sheeg. da'da aadamaha waxaa loo qaybiyaa guud ahaan 3 qaybood. kow, da'da xadidan oo ah qof kasta inta uu nool yahay adduunkan 60 sano sidaan hore aan u soo sheegnay, taasoo dadka qaarkood ay dhaafaan, dadka qaarkoodna ayna gaarin ay horay ka dhintaan. 2, da' guud ahaaneed oo ah da' u dhaxeeya bini'aadamka oo dhan, taasoo ku saabsan waxay bini'aadam oo dhan qabtaan sida hurdada, cunitaanka, acabka iyo baahi gudashada. arrimahaas dadka oo dhan way ka siman yihiin, saacado gaar ah maalin walbana way ku baxaan. marka la xisaabiyo addoon 60 jir ah inta uu ku bixiyo hurdo uun waxay noqonaysaa 20 sano. ha la yaabin, waa 20 sano oo dhan. taas waa haddii uu maalin walba 8 saacadood aw seexdo aw hurdo ku qaato. aadamaha 60 jirka haddii la xisaabiyo inta sannadood ee ku baxday baahidiisa sida wax cabitaan iyo wax cunid iyo xaajo kaleba 5 sano oo dhan weeye, taasoo maalinkii 2 saac aw ku bixiyay arrimahaas. da'da xadidan ee 60 sano ah marka laga jaro 20 sano oo hurdo ku baxay, 5 sano oo cunto, acab iyo baahi kale ku tagay, iyo 15 sano oo caruurnimo nagu dhaafay, waxaa noo soo haraya 20 sano oo keliya. 20kaas sano waa da'da runta ee qofka 60 jirka gaara. bal ka waran 20 sano oo qof walba waxa uu rabo inuu gaaro aw ku gaarayo, wax walba uu rabo inuu barto aw ku baranayo. 20 sano oo qofku aw ku noqonayo aqoon-yahan amba jaahil waxba aan aqoon. waa 20ka sano ee nolosha bini'aadanka ugu muhiimsan. halkaas waxaa nooga cad cumrigeena inaan ilaalino oo maalayacniga aan ka fogaano inta aan karno. haddaba waxaa isweydiin mudan inuu jiro siyaabo cumriga bini'aadamka uu ku kordhi karo, taas oo jawaabtiisu ay tahay haa. siyaabaha uu qofka da'diisu ay ku kordhayso waxaa loo kala qaadi karaa 2. kow, siyaabo habnololeedka qofka la xidhiira. 2, siyaabo diinteena islaamka ku soo arooray. haddii aan ku horeyno siyaabaha habnololeedka qofka ku saabsan, waxaa lagu soo koobaa 2 arrimood oo muhiim ah. kow, inuu qofku uu ilaaliyo caafimaadkiisa guud, isagoo waxa uu cunayo iyo waxa uu cabayo ka fiirsanaya. sidoo kale inuu dhismaha jirkiisa la socdo, isagoo sport samaynaya, hadday noqoto socod, orod iyo wixii la halmaala. arrinta labaad ee muhiimka ah waxa weeye inuu qofku uu habeeyo hurdadiisa, isagoo habeenkii hore u seexanaya, subaxdana hore u soo toosaya. haddaba 2 qodob waxa weeye habnololeed ku saabsan qofka oo ku caawinaya inuu cumrigiisu ziyaado oo kordho. siyaabaha da'da bini'aadamka oo ku kordho ee ku soo arooray diinteena islaamka, haddii aan u gudubno xadiis keliya oo saxiix ah bay ku soo arooreen. xadiiskaas oo Caaisha radiyallahu canha ay warinayso inuu nabigeenu yidhi calayhi salaatu wassalaam, silatu raxim wa xusnu ljiwaar wa xusnu lkhuluq yucamiraani addiyaar wa yaziidaani fi lacmaar. oo macnihiisu yahay qoyska iyo qaraabada oo la xiriiriyo, jaarnimo wanaagga amba deris wanaagga iyo akhlaaqda wanaagsan waxay camiraan guryaha, waxayna kordhiyaan da'da. arrinka koowaad ee ku soo arooray xadiiska waa qaraabo xiriirinta, oo ah nasiib darro arrin aan badankeenu ka gaabino. anagoo nool casri aw xiriirku aad iyo aad u fudud yahay, casri qof walba aw telefon sito, casri aw qofku ku marmarsiyoon karayn meel aan kala xiriiro qaraabadii ayaan waayey. waxaa laga yaabaa dad badan inay dhahaan waqti uma hayno qaraabada inaan xiriirino, laakiin taasi waa iska marmarsiyo uun, sababtoo ah wax kaste qorshayn iyo rabitaan ayuu ku xiran yahay. xiriirinta qaraabadana waxaa kaaga filan salaanta sharciga oo aad gaarsiiso keliya. arrinka labaad uu xadiisku sheegay in uu da'da ku kordhinayo haddii aad la timaado waa deriska ama jaarka oo aad wanaajiso, si wanaagsan aad ula dhaqanto. arrinka ugu dambeeya
au xadiisku ka dhawaajiyena waxa weey dabeecadda wanaagsan. dabeecad wanaagna waxa kaaga filan inaad dhibaatadaada khalqiga ilaahay aad ka haysato hadday aflagaadayn noqoto, xan noqoto, xasad, cayn iyo wixii la halmaala. ugu dambayn waxaa jira waxyaalo dii aad la timaado oo 20 jir ah ama ka yar aad la mid noqonayso qof dhowr boqol oo sano nool. arrimahaas insha Allahu tacaala waxaan ku soo bandhigi doonaa muuqaal kale. waxaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkan aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ku leeyahay walikulli ummatin ajal fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruuna saa'atan wala yastaqdimuun. ummad kasta ajal iyo waqti ay dhimato bay leedahay, haddaba markay ajashoodu ay gaadho dibna kama dhacaan mana soo hormarsadaan. muuqaalku hadduu ku cajabiyo laagaysa channelka haddii aad ku cusub tahayna nagu soo biir sida aad u faa'iido oo naftaada aad u kobciso. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.